runtii waxaana wanaagsan dhammaan bacda ku xiran janaalka kulmiye technology course waa koorsada C++ casharku waa casharkii 47 maanta waxaan qaadanaynaa wax lagu magacaabo deconstructor. Si aan u aragno deconstructor waxaan u baahnaa horta marka ugu horeysa inaan sameyno class. Haddii aad rabto class inaad sameyso waa inaad sheegtaa keywordkaas la class kadibna aad sheegto classka magaciisa. Anaga hadda kaliya waxaan rabnaa inaan fahanno kaliya conceptiga la deconstructor marka classkeena waxaan iskaga dhigaynaa tijaabo kaliya ka dhigaynaa. Okay, kadib markii aad dhahdo tijaabo waxaan sameysanaynaa horta constructor. horena waa usoo baran constructor marka hore ayaan soo sharxay. haddii aad rabto constructor inaad fahanto fadlan dib u noqo casharadii hore. Constructor asiga waxaa lagu ogaadaa wuxuu wataa magaca classka. magaca classka maxaa la dhahaa tijaabo. qoraysaa magaca classka tijaabo le karabe tijaabo. Okay, tijaabo. Okay, constructor waa kana waa sameeye kadib gudihiisa waxaan qorayaa inaan wax kusoo bandhigo. waxaan leeyahay waxaan ahay constructor. Okay, kadibna waxaan ku daba qabanayaa underline sidaa ujeediin constructor waa sameynay balse waxaan u baahannahay inaan sameyno deconstructor. Deconstructor asiga horta waxaa loo isticmaalaa in objectigaaga markasta oo la sameeyo wuxuu qabsanayaa memory. si memorygaas free ugu dhigto ayaa waxaa loo samaystaa deconstructor markasta. deconstructorkana markasta kaagama baahno inaad adiga wacdid. compilerka ayaa wuxuu u wacayaa si automatic haddaarata wac haddaarata wicin. hadda ayaan tusinayaa compilerka ayaa kuu qabanaya shaqadaas. haddii aad rabto deconstructor inaad samaysid calaamadaas waa inaan ka bilaabaa. waxaa qoraysaa calaamadaas oo la dhahayo tilli waana calaamadan. shifty waxaa riixaysaa number 1 geeskeeda. waxaa ka helaysaa number 1 geeskeeda. haddii aad keyboardka isticmaalaysid meeshaas ka fiiri shifty ayaa qabanaysaa number 1 kan ku xiga riixaysaa calaamadaas ayaa kuu soo baxayso. kadib waxaa soo qaadanaysaa intaan. waa intaan oo lagu dara keliya calaamadaas waxaa la markaas deconstructor. isla magacii wuxuu wataa isla magacii galaaska iyadoona wax laga bedelin tijaabo. Okay, isla magacii galaaska laakiin waxaa ka duwaya keliya calaamadaas oo la dhahay tilli. calaamadaasna waa haddii aragta calaamadaas waxaad u qaadanaysaa waxayna yihiin deconstructor. deconstructor asiga horta ritaanta ma lahan oo ma sii kartid code oo kale waxaas ma lahan waa qalad. overloadna ma lahan oo macnaha asigoo versionno kala duwana ma samey karto. overloadna hore fashion overloadna hore usoo baranay. fadlan haddii aad conceptigaas la yaaban tahay ku noqo casharadii hore ayaan usoo aragnay marka asigana aan kusoo bandhigo walaa. Okay, waxaan ahay oo kale waxaan ahay deconstructor. Okay, kadibna aan dhaho endline. bal aan wacno functionkan aan sameyno object bal aan sameyno object oo galaaskana. si aan u sameyno object oo galaaskan horta waa inaan sheegnaa galaaska magaciisa marka ugu horeyso. galaaskan waxaa la tijaabo la object yaarna inaan u sameyno tile iska dheh. hadda haddii aan sample aan radho maxaa marka ugu horeyso waxaan garoobaya constructorkan anigana ma wicin by default compilerka shaqadaas ayaa qaban. bal aydan tusiya hadda anigoona waxaan wicin ayaa la wacayaa si automatic ah oo adiga aanan shaqo ku lahayn. si automatiga aanan adiga shaqo ku lahayn. hadda muxuu dhawayaa error ayuu soo saaray. waa maxay errorkaas? tijaabo is a private. Okay, sax waaye. hal mid wax kasta oo C++ wax kasta oo class marka la joogo luqadan C++ wax kasta aad ku qortid classka gudihiisa waa private. haddii aadan sheegin by default waa private waa sidaan oo kale. laakiin compilerka asiga ayaa ka dhigaya annaga uma jeedno. haddii aan sidii dhaho wax ma isbedelayo sababtoo weli errorka lagu qabsanaa. balse haddii aad rabto badanaa variablada ayaa private laga dhigtaa. haddii aad rabto waxa oo function galaaska ku dhex jiro in banaanka laga isticmaalo
waxaad u baahan tahay keywordkaas laayo public kaasoo ah waa waxaan waa free waa public qof allaaliyo qofka rabo ayaa isticmaali karo kaasoo ah function allaaliyo iyo functionkaa rabto ayaa ka wici kartaa balando build and run sidaad ujeedin wuu rangaroobayaa hore ayuuna koodkeena ka shaqaynayaa ogaa wuu maqan yahay sidaa ujeedin maxaa soo baxay waxaan ahay constructor maxaa la wacay waxaan ahay constructor waxaan ahay deconstructor markuu ugu horeyso waxaa la wacay constructorka yaa wacay compilerka wacay anaga mawcin waxaa haddana la wacay oo kale waxaa la wacay waxaan ahay deconstructor waxaa la wacay deconstructor yaa wacay anaga mawcin waxaa wacay compilerka waa kana sidaa ujeedin bal haddii aan dhexdan aan wax kusoo bandhigo oo dhaho keliya soo bandhig keliya waxaan waa tusaale keliya conceptiga rabnaa inaan isla aragno okay endline and door bal fiir hadda wax dhacayo waa soo socoyaa sidaa ujeedin waxaa soo baxay waxaa la wacay balaa idin tutusiyo si nadiifa idin tutusiyo si nadiifa wax yar isuga markuu ugu horeyso maxaa la wacay waxaa la wacay kan oo ah constructorka marka la waco maxaa yeelay markasta oo objectii la sameeyo waxaa la wacaa by default constructor markasta oo object aad samaysid waxaa la wacayaa constructor markasta oo object aad samaysid compilerka wuxuu wacayaa constructorka la wacayaa kadib markuu constructorka wacay wuxuu haddana soo bandhigi kan waa soo bandhig waa la soo bandhigi kadib koodkeena wuxuu fiiriyey haddii ay wax kale ay jiraan kuwaasaa lasoo bandhigaa haddii la waayana waxaa la wacayaa deconstructorka sidaa ujeediinna waxaa la wacay deconstructorka deconstructorkaasi waxaa ku ogaanaysaa calaamadaas inuu leeyahay tildiga wuxuuna wataa galaaska magaciisa wax ritaan taabana ma lahan wax oo overloadingna ma lahan function overloading horaa usoo baranay casharkeena intaas ayuu nagu yahay video laag saar channelkana subscribe saar mahadsan